Maxamed aabihiis waxa uu ahaa mid gaarigiisa ka soo dejiyay wan cusub oo uu soo iibsaday. Wankii ayaa ka baxsaday. Waa uu bursaday ilaa uu ka galay guri ay ku nool yihiin qoys sabool oo agoon ah. Waxa ay ahayd agoonta hooyadood mid subax walba ku sugta iridda hore qof wax ku sadaqaysta. Deriskuna waxay ahaayeen kuwo mar walba caawiya. Markii wankii uu galay iridda guriga, waxaa albaabka soo istaagtay hooyadii, waxayna aragtay Maxamed aabihii oo taagan albaabka hore ee guriga. Waxa uu ahaa mid dhididsan oo aad u neeftuuraya. Hooyadii waxay ku dhahday iyadoo u maleysa inuu ku sadaqaystay wankan, "Allah kaaga dhigo sadaqa kuu socota mar walba, Aabe Maxamedow. Ilaahay khayr ha kugu beddelo." Maxamed aabihiis afkiisa wax kale kama soo bixin oo aan ahayn "Ilaahow iga aqbal." Kadib waxa uu wejigiisa aadiyay xagga qiblada wuxuuna dhahay, "Allow iga aqbal." Maxamed aabihii waxa uu u soo galay qoyskiisa isagoo aanan wadin wax wan ah. Aad ayay u soo dhaweeyeen, waa ayna ku farxeen. Cidna lama uusan hadlin. Waxa uu u sii gudbay gudaha qolkiisa, waa uuna seexday. Maalintii labaad, Maxamed aabihii waxa uu u soo baxay salaada subax. Salaada kadib waxa uu u soo baxay inuu soo iibsado wan cusub. Waxa uu arkay gaari ay ka buuxaan wanan badan oo taagan. Waxa uu ka iibsaday ninkii iibinayay wananka wan ka caylan kii shalay uu soo iibsaday. Maxamed aabihii waxa uu weydiiyay qiimaha uu iibinayo wanka. Ninkii ayaa ku jawaabay, "Qaado wanka, waxba islama weyneyno." Maxamed aabihii waxa uu guda galay inuu wankii qaato oo uu soo saaro gaarigiisa. Kadib waxa uu u soo noqday ninkii wanka iibinayay. Ninkii iibinayay ayaa waxa uu ku yidhi, "Qaado wankaas, adiga ayaa iska leh. Wax lacag ahna lagama rabo." Maxamed aabihii waa uu yaabay. Waxa uuna weydiiyay ninkii wanka iibinayay sababta. Ninkii ayaa ku jawaabay, "Sababta waxay tahay Ilaahay ayaa waxa igu arsaaqay in sanadkan ay dhashaan wanan fara badan. Waxaana nadar Ilaahay kula galay in haddii ay ii bataan aan qofka ugu horeeya iga iibsada aan sii doono wan si bilaash ah. Adna waxaad tahay qofkii ugu horeeyay ee iga iibsanayay. Tan waa nasiibkaaga." Maxamed aabihii waa uu dhoola cadeeyay farxad aawadeed. Waxa uuna dhahay, "As-sadaqa, maxaa ku ogeysiiyay sadaqada? Sadaqaysta maxaa yeelay karfanta ma lahan wax jeeb ah." مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe saar si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah. Mahadsanid.